anigoo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf ana tirsan golaha deegaanka Berbera waxaan bulshada reer Berbera ka raali gelinaya hadalka ka soo yeedhay maayarka Berbera ee ah inay bulshada reer Berbera boqolkiiba 90 yihiin dad ku nool shaxaad iyo balaayooyin ay soo abuuraan bulshada reer Berbera maaha kuwa uu sheegay saaxiibkay waxa weeye dad xariira oo shaqaysta taariikhda magaalada Berbera waxay caan ku tahay dad shaqaysta dhalinyarada wax baratay wiilal iyo gabdhaba kuwooda aan waxba baranina tuurtooday dhigtaano way xamaashaan shaqaduna waa sharaf taariikhda magaalada Berbera ilaa intan Soomaaliland jirtay iyo ka hor markii dawladii Soomaaliya ay jirtayba magaalada Berbera waxa ku noolaa dad kala duwan magaalo xadaarad leh waa dad shaqaysta oo xamaasha dalweynihii la isku oran jiray Soomaaliya intii aynaan xurriyadeena kala soo noqon 1991 waxa dalkii Soomaaliya la isku oran jiray laga dhisay magaalada Berbera runtii waa magaalo taariikhda leh waxaan aad uga raali gelinayaa dhalinyarada reer Berbera hadalka meel ka dhaca ee dhigahooda ku soo dhacay iyadoo Berberi maanta ay kamid xaruntii dhaqaalaha Soomaaliland ay tahay dadkana ay dad wax bartay oo ilaa 4 jaamacadood imika ku yaalaan iyo intaas oo dugsi sare dad wax bartay oo bright oo iftiimaya Berbera ku nool inta aan waxba baranina sidii aan horeba u sheegay xoogooday maalan aad iyo aad baan u raali gelinayaa ayarkana waxaan ugu baaqayaa arinta nin weyn oo hadal ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday inuu dadka raali gelin degdega ka siiyo meel ka dhaca aan u meeldayin ee ula bareeray bulshada ku nool magaalada Berbera